السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kulanti wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub. Daraasad ku salaysan cilmi baaris oo la sameeyay ayaa sheegtay in ay jiraan 4 nooc oo arday ah, waliba 4 nooc oo maskaxda ardayda ah. Guusha uu ardayga ka gaaro mustaqbalkana waxay ku xiran tahay nooca uu ardayga yahay, sida ay sheegayso cilmi baaristan. Runtii, maskaxda ardayda ayaa qaabaysa mustaqbalkooda ee maaha dhibcaha ama natiijada ay keensadaan. Haddii aad tahay arday oo aad daawanayso muuqaalkan, waxaad qiimeyn kartaa naftaada adigoo ogaanaya nooca arday ee aad tahay iyo heerka guusha aad gaari karto mustaqbalka. haddii aad diyaar u tahay arrintan, ila dhamaysa muuqaalka. soo dhawaada mar kale. magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. inta lagu guda jiray cilmi baarista, hal su'aal ayaa la weydiiyey arday badan. su'aashaas oo ahayd: maxaad wax u barataa? waxay u muuqataa su'aal fudud, laakiin waa su'aal maskaxeed. haddii aan adigu ku weydiiyo su'aashan, maxaad wax u barataa, waxaan ka codsanaa inaad muuqaalka joojisid oo aad jawaabta su'aashan si xaqiiqo ah commentiga ugu qortid. mahadsanid. aanu soo noqon cilmi baaristan. qayb yar oo ardayda ka mid ah ayaa ku jawaabtay: waxaan wax u bartaa waalidiinteeda ayaa igu dhiirigeliyey. haddii aanan wax baranina way canaanan doonaan, sidaas ayaana wax u bartaa. ardayda noocan ah waxaa loo yaqaanaa arday hoose. cabsi ayayna wax ku bartaan. haddii aad maanta iskuulka ka baaqato ama maamulka ku ciqaaba, waalidka armuu kugu qayliyaa, cabsidaas ayaa ku jirta. inta badan ardayda noocan ah waxaa mustaqbalkooda ku dhacdo xirfad xumo, shaqooyin hoose ayayna helaan. isla su'aashii ayaa la weydiiyey ardayda: maxaad wax u barataa? koox kale oo arday ah ayaa sidan ku jawaabtay: waxaan wax u bartaa inaan helo dhibco fiican, kaalina galo, si aan mahadcelin iyo abaalmarinba uga helo waalidiinteyda, qaraabadeyda, saaxiibaday, macallimiinteyda iyo maamulkaygaba. ardayda noocan ah waxaa loo yaqaanaa arday caadi ah. inta ugu badan ardayda noocan ah waxay dhistaan xirfado iska caadi ah, waxay helaan shaqooyin iska caadi ah, waxayna samaystaan ganacsiyo iska caadi ah. mar kale isla su'aashii ayaa la weydiiyey ardayda: maxaad wax u bartaa? koox saddexaad ayaa ku jawaabtay: waxaan wax u bartaa maxaa yeelay waan ku raaxaystaa waxbarashada. waxaan rabaa inaan waxbarashada meel sare ka gaaro si ay waalidiinteeda igu farxaan. ardayda noocan ah waxaa loo yaqaanaa arday wanaagsan. inta badan ardaydan waxay dhistaan ama yeeshaan xirfado wanaagsan, waxay helaan shaqooyin fiican, waxayna samaystaan ganacsiyo wanaagsan. ugu dambeyntii, isla su'aashii ayaa la weydiiyey kooxdii ugu dambeysay. jawaabta ay bixiyeen kaliya arday aad u yar ayaa bixin karta. maxay kula tahay jawaabtooda? waxay ku jawaabeen: ma garanayo sababta aan wax u baranayo. micnaha jawaabtan ma ahan inaysan aqoonin sababta ay wax u baranayaan, ee waa inaysan wax u baranayn sababaha ay inta badan ardayda wax u bartaan oo ay koow ka tahay imtixaanka. waxay wax u bartaan si ay noloshooda, tan qoyskooda iyo tan dalkoodaba ay wax ugu taraan. waxay wax u bartaan si ay dunidan wax ugu soo kordhiyaan. marka ay waxbarashada ku jiraan, hadda fog ayay nolosha ka leeyihiin, kaas oo dhaafsiisan inay keenaan natiijo fiican, kaalin galaan iyo wixii la mid ah. ardayda noocan waxaa loo yaqaanaa arday garaad sare leh. waxaana lagu tilmaamaa ardaydan in ay dunida taariikh ka sameeyaan. waxay noqdaan arday aan caadi ahayn, waxay kaloo noqdaan hogaamiyayaal. waxaana loo yaqaanaa sidaan wax yar ka hor soo sheegnay extraordinary students, arday garaad sare leh. haddaba arday, nala wadaag 4 qayb nooca aad adiga tahay. waxaa macquul ah inaad niyad jabto kadib markaad ogaato nooca arday ee aad adiga tahay, laakiin ha welwelin. weli waxaad haystaa fursad aad ku noqon karto ardayga aad rabto. keliya ku dhaqan dabeecadaha iyo sifooyinka lagu garto ardayda wanaagsan. ugu dambeyn, xusuusno in waxbarashada aragtida ah ama theory-ga ah keliya aysan kugu filnayn, kaana caawin doonin inaad nolosha guulo ka xaqiijiso, laakiin aad u baahan tahay xirfad. ma noqon kartaa duuliye haddii aad dhowr sano baratid casharro ku saabsan sida loo duuliyo diyaaradaha, loo dejiyo iyo wixii la mid ah, adiga oo aan helin wax practical ah? dabcan maya. keliya waxaad duuliye noqon kartaa. boqolaal rakaab ahna lagugu aamini karaa nafsadooda markaad yeelato xirfadda duuliyanimada. sidaas darteed, ku dadaal inaad yeelato xirfado. saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. intaan ku kulmi doono mawduuceena xiga, nabadgelyo.